waa sheekadii amiiradda soo amata bixisay bini'aadamka ayadoo soo afjartay dagaalkii koowaad ee adduunka. Daniel waa haweeney Faransiis ah oo ku nool Paris. Marka oo imaaday ninkeeda wuxuu u keenayaa boorso ay ku jiraan fariin oo u soo dhiibay Bruceman. Daniel ayaa furaysa boorsada. Marka ay furtana waxay ka soo saaraysaa warqad ay ku qoran tahay qoraal, dushuna aaga sawiran yahay saddex. Warqadan waxaa ku qornayd qoraal ah: aniga waxaan helay asalkaaga, laga yaabo inaad iiga sheekayn doonto maalin uun taariikhdaada. Daniel oo akhrinaysa qoraalka ayaa waxay galaysaa gudaha, kadibna waxay soo xasuusanaysaa taariikhdeedii hore, markii ay la nooleed hooyadeeda jasiiradda kula nooleed carruurnimadeedii. Hooyadeed waxay ahayd boqoradda ka talisa jasiiradda oo dhan. Jasiiradda waxaa lagu magacaabi jiray Timsa. Jasiiraddan waxay ahayd jasiirad daahsoon oo dadka caadiga ma arki karaan. Jasiiraddan waxay kaloo ahayd jasiirad laga qariyay caalamka. Jasiiraddan waxyaabaha gaarka ay leed ayaa waxaa ahay jasiiradda waxaa ku noolaa dumar oo keliya. Dumarka ku nool jasiiraddan waxay ahaayeen dagaalyahano. Had iyo jeer waxay ku dhaqmaan dagaalka. Dani waxay ahayd carruur, laakiin waxay jeclayd inay noqoto si ayagoo kale dagaalyahan weyn. Boqoradda Daniel hooyadeeda ma rabto in ay barato wax xirfad ah sababtoo ah gabadheeda aad bay u jeceshahay. Daniel hooyadeeda waxay ka dhigtay dhoobo. Leto waxay u tagtay boqorkii sixirka Zozo oo wuxuu noloshu ku afuufay taalada dhoobada ah ee Dani hooyadeeda ah. Sidaan oo kale Dani waxay u timid adduunkan. Hooyadeedna waxay ka sheekaynaysaa sheekadii habeenkii. Waxay u sheegtay Zeus oo ah sixiroolkii bini'aadamka ahaa inuu sameeyo aadanaha si sixir ah. Aadanaha waqtigaas wuxuu u nool yihiin si aad u fiican, laakiin Zuzo inuu ahaa shaydaankii dagaalka ayaa ka masiirayo dadkii. Bini'aadamku waxay noqdeen in midba midka kale oo la dagaalo. Zeus wuxuu noo sameeyey inaan ku abuurno qulubta bini'aadamka jecel. Si la mid ah ayaa dhacday, laakiin muddo kadib xaaladda sideeda ayay ku soo noqotay. Oo waxaan ku noolahay Amazon. Waxaan ahay boqoradda Amazon. Zeus wuxuu noo soo diray sixiroolayaal si aniga ay noo caawiyaan, laakiin wiilkiisa wuxuu laayay sixiroolayaashii dhammaan. Laakiin Zeus kaligiis ayaa laga tagay oo wuxuu la dagaalamay Ares. Awooddiisa dhan way daciifowday. Ares ayaa lagu qasbay inuu ka fogaado meeshan, laakiin Zeus wuu ogaa inuu soo laabanayo wiilkiisa mar kale oo dhammayn doono bini'aadamkan. Zeus wuxuu na siiyey seeftan oo waxaan ku soo afjari karnaa sixiroole kasta oo na soo weeraro. Kadib wuxuu sameeyey jasiiraddan neefsashadiisii ugu dambaysay. Tani wuxuu u sameeyey si Ares oo weligiis aniga noo helin. Sidoo kale waxaan ka qarsannahay dunidan. Kadib Zeus markii uu la tartamay Ares wuxuu noqday daciif. Wuxuu sameeyey intuusan dhiman jasiiraddan, waana jasiiradda ay kula nooshahay Dani hooyadeeda. Marka Ares ma heli doono jasiiraddan weligiis. Daniel hooyadeeda waxay tiri waxaan rabaa inaan arko seefta uu ku siiyey Zeus. Daniel hooyadeeda waxay weydiinaysaa yaa isticmaali doona seeftan. Hooyadeedna waxay u sheegaysaa inuu isticmaali doono qof xoog weyn seeftan. Dani hooyadeeda waxay u sheegaysaa uma baahnid inaad ka fikirto, waayo sababtoo ah laguma bari doono dagaalka xirfadda. Boqoradda ma ogo in waxaasoo dhan Dani ay ka baratay walaasheeda ka weyn. Dani way weynaatay oo way kortay. Ayadoo waqtiga oo sii dheeraanaya ayaa waxaa arkaysaa hooyadeeda oo Dani u tababaranayso. Kadibna walaasheeda ayay u imaanaysaa oo waxay leedahay maxaad u tababaraysaa Dani? Dani walaasheeda waxay leedahay waan ogahay inuu soo laaban doono maalin uun Ares. Waxayna leedahay Dani haddii ay bari wayso dagaalka ayada ayaa nafteeda halis ay gali doontaa. Kadib Dani hooyadeeda walaasheeda waxay ka codsanaysaa in ay barto Dani dagaalka midka ugu fiican. Intaasi kadib Dani waxay noqonaysaa dagaalyahan weyn. Kadib waxay ogaanaysaa in ay leedahay awood cidna uma sheegan. Dani waxay taagnayd xeebta. Kadibna waxay arkaysaa diyaarad soo dhacaysa oo ku dhacaysa badda. Kadib Dani ayaa galaysa badda oo waxay ka soo saaraysaa ninka. Kadibna waxay keenaysaa jasiiradda. Way la yaabtay markay aragtay ninkan, waayo sababtoo ah nolosheeda ma ay arkan nin. Ninkan ayaa lagu magacaabaa Stephen. Kadib dooni ayaa lagu soo bandhigayaa badda dhexdeeda. Waxay erinayaan Steve
ciidankan waa Jarmal. Dhanka kale, sarkaal ayaa arkay diyaaradda. Wuxuu arkaa jasiirad qarsoon. Markuu damca jasiiradda qabso, jasiiradda dhan ayuu waayay. Sarkaalka wuxuu kaloo arkaa Steve. Wuxuu rabaa inuu qabto Steve Daniel wuxuu u sheegay dadkaani soo socda inay yihiin dad aad u xun. Kadib waxaa meesha imaanaysa marwada dagaalyahanada ee jasiiradda. Saraakiisha Jarmalka waxay wataan qoryo, laakiin dagaalyahanada jasiiradda waxay wataan seefo iyo falaaro. Laakiin saraakiisha Jarmalku way awoodi waayeen muddo dheer inay gacanta ku hayaan. Laakiin sarkaalka Jarmalka ayaa isku dayay gabay ahaan inuu soo afjaro Dani, laakiin walaasheeda ayaa isku dhigtay xabadda oo ku soo riday. Kadib Dani markii ay aragtay walaasheeda inay xabadda ku dhacday ee geeriyootay, aad bay u oonaysaa oo qaylinaysaa. Saraakiishii Jarmalka dhammaan waa la soo afjaray. Stephen asigoo la dili rabo, Dani ayaa isku hordhigaysa oo ka celinaysa dagaalyahanada jasiiradda inay disho. Kadib dagaalyahanada jasiiradda waxay su'aal weydiinaysaa Steve. Waxay leedahay maxaad halkan ka soo doontay? Kadibna wuxuu u sheegayaa inuu yahay basaas ka shaqeynaya xirada Jarmalka. Markii aan ogaaday in Jarmalka ay sameeyeen gaas sun ah ay ku baabi'i karaan dadka, kadibna meesha aan iskaga soo baxsaday aniguna ka soo xaday buug xasuus qor ah. Jarnaalka ayaa amray in la sameeyo gaaskan sunta oo dadka lagu laaynayo. Dhabaan waxaa dhici doona dagaal u dhexeeya labada dal. Sidoo kale qof walba oo dhimanaya. Dhab ahaantii waxaa socda isku diyaarinta dagaalka koowaad ee adduunka meel ka baxsan jasiiradda dadka. Deegaanka jasiiradda gabay ahaan kama warqabaan. Stephen wuxuu leeyahay haddii buugan xusuus qorkaan u gudbiyo xarunteeda, waxaa laga yaabaa dagaalkan inuu jiro. Malaayiin qof ayaa sidaas ku badbaadaya. Tani Dani way maqashay, waxayna fahantay tani in uu sameeyay Aris. Wuxuu rabaa markan inuu soo afjaro bini'aadamka. Dani hadda waxay rabtaa inay badbaadiso aadanaha, laakiin jasiiradda haddii Dani ay ka baxdo mar kale kuma soo laaban karto. Kadib hooyadeeda ayaa meesha imaanayso, waxayna u sheegaysaa mar hadday ka baxdo jasiiradda inay ku soo laaban karin mar kale. Waxay leedahay dunida bini'aadamka kuma deji karto. Kadib Dani waxay go'aan ku gaartay in ay badbaadiso aadanaha. Kadibna waxay xirxiratay dharkeeda si ay u aado dagaalka. Waxayna qaadanaysaa seefteeda oo siiyey Zeus. Kadib Dani hooyadeeda waxay u sheegaysaa inay meeshan ay ka fogaan, waayo dikal dhibaato ayay la kulmaysaa. Dani way ka diidaysaa. Kadibna hooyadeeda waxay soo siinaysaa Franti. Kadib Steve iyo Dani waxay doon ka soo raacayaan jasiiraddan. Steve wuxuu u tagay saraakiishiisa asigoo wata buuggii oo ka soo xaday Jarmalka. Kadib saraakiishiisa waxay u sheegayaan buuggaani inay ku qoran tahay luqad kale aan la akhri karin. Kadib Dani waxay u sheegaysaa buugga xasuus qorka inay ku qoran tahay laba luqad oo luqadihii hore ah. Dani waxay u sheegaysaa inay ku hadli karto dhowr luqadood ayna qori karto. Waxayna leedahay waxaan sheegi karaa buuggan xasuus qorka wixii ku qoran inuu Jarmalka sameynayo gaas oo sun ah. Inta dambe waxay ka hadlayaan heshiiska ka imaaday Jarmalka. Steve wuxuu leeyahay fursad isii aniga ayaa soo cadeynaya. Laakiin odaygu kuma raacsano. Kadib Dani aad bay u xanaaqaysaa. Sababtoo ah waxay ogtahay haddii Jarmalka oo ka bax gaaska, malaayiin qof ayaa ku geeriyoonayso. Daniel waxay qiimaysay qof walba oo bini'aadan noloshiisa. Steve Dani ayuu meesha ka soo wadaa, wuxuuna leeyahay waa inaan wada hadalna. Kadib Dani waxay leedahay waa aarsasho ciidan. Dani waxay leedahay cidna ma maqlaayo. Hogaamiyaasha dagaalka waxay rabaan in ay soo afjaraan bini'aadamka wax walba ha ku qaadatay. Dhanka kale, Dr. Maro ayaa lagu tusay samaynta gaaska sunta Jarmalka. Dhakhtarka wuxuu la kulmay dhibaato sababtoo ah buugga xasuus qorka ah waa la xaday. Jarnaalkii ayaa u yimid, wuxuuna weydiiyey goorta ay soo dhammaan doonto shaqadooda. Dr. Maro jarnaalku wuxuu u sheegayaa in uu sameeyay gaas cusub oo bini'aadamkuna anfici doono gaaskani. Markuu qaaco ka galo jarnaalka sanka, wuxuu yeelanayaa awood. Dhanka kale, Dr. Maro waxaa la tusay qaacdo cusub. Waxay ka samaysneed gaas cusub. Malaayiin qof ayaa la joojin karaa halkii mar, ayadoo la kaashanayo gaaska cusub. Steve wuxuu doonayay inuu geeyo goobta dagaalka Dani. Intaas baa wuxuu sameeyay koox si wada jir ah u wada dagaalamaya. Gaaritaanka meesha, Dani waxay dareemaysaa xumaan dadka meesha jooga. Waxay soo gaadheen dhanka hore ee Belgiumka, waxaana ka dhacday duqeyn. Dadku waa ay dhimanayeen. Qof walba meesha ayuu ka cararayay, halkan iyo halkaasba. Islaam baa istaagtay oo la hadashay oo u sheegtay wax walba waa nagala qaatay. Dadka intooda badan waxaa laga dhigay addoomo oo tuulada.
daani ayaa weydiinaysa gabadha waxay leedahay xaggee ka dhacday dhibaatadaas kadibna waxay ugu fiiqaysaa farta oo leeda Jarmalka ayaa xaggaas qabsaday. daani waxay rabtaa inay meeshaas aado ee caawiso dadkaas. Stephen ayay weydiinaysaa waxaan rabaa inaan caawiyo dadkan halkan joogo. Steve wuu celinayaa laakiin ayada warkiisa ma yeelayso waxayna soo gashanaysaa dharkii dagaalyahanada. waxay u soo dhaqaaqday halka ay ka ridayeen askarta Jarmalka rasaasta. kadib daani waxay joojinaysaa halka ay ka soo socotay rasaasta waxayna ku celinaysaa awooddeeda. kadib daani waxay la dagaaltamaysaa askarta Jarmalka ayadoo u isticmaalaysa awooddeeda gacmaha. kadibna waxay la soo bixaysaa gaashaankeeda ay iskaga dhigayso xabadda. askarta Jarmalkan aad ay u soo xabadeen. ugu dambeynta meesha waxaa imaanaya John oo wato qori asiga asxaabtiisa. kadibna meesha ayay ka bilaabeen xabad rid. kadibna waxay ku turaan askarta Jarmalka miino ayay ku tuurayaan. kadib daani waxay aadaysaa dhankii askarta Jarmalka ee dadka aaga dhigteen gumaysi. ugu dambeyn askartii ayay u imaanaysaa waxayna meesha ku laanaysaa dhammaan askartii meesha joogtay. daani xabadda ma karto waxayna ka adkaanaysaa askarta. ugu dambeyn dadka tuulada way farxayaan maadaama ay ka baabiishay cadowgii oo addoonsanayay. daani qof ayaa si qarsooni ah sawir aaga qaaday ayadii iyo Steve. sawirka daani laga qaaday sawir kale ma aha ee waa sawirka u soo dhiibay Batman had. Stephen wuxuu ogaanayaa inay jirto xaflad weyn ay dhiganayaan saraakiisha Jarmalka sidaas darteed wuxuu rabiyaa inuu meesha tago. Stephen daani waxay sameeyeen ciyaar koobka ciyaar ah. waxay soo gaareen maalintii xigtay goobta Jarmalka ay ku dhiganayaan xafladda iyadoo ammaanka loo adkeeyay aad u weyn. waxay rabaan inay gudaha ay galaan waxaan iskugu imaan doon dhammaan askarta Jarmalka. ugu dambeyn John wuxuu galay gudaha asigoo la kulmay Dr. Mary. wuxuu la kulmay dhakhtarkii sameeyay gaaska sunta ah. kadibna wuxuu damcayaa inuu xoog aaga qaato laakiin wuu soo dhawaanaysaa. kadib meesha ayuu iskaga soo tagayaa. daani waxaa isla ciyaaraya askariga Jarmalka ah. kadib abaar markay wada ciyaaraan kadib waa ka tagay sarkaalka Jarmalka ah. kadibna daani waxay aaga sheekanaysaa inuu yahay aar. kadibna waxay damcaysaa inay gadaal aaga dhufto darbaaxo. kadib waxaa ka qabanaya Steve oo dhahayo haddii asiga uu ahaan waa maxaa samayn doonaa. intaas kadib daani xafladda dhan ayaa iskaga soo tagaysa oo ka soo xanaaqaysa. daani waxaa loo sheegayaa in dadka tuulada lagu laayay gaaskii. kadibna way soo bixisaa waxay imaanaysaa tuuladii. kadibna dadka weywaanaysa oo waxay arkaysaa tuulada dadka joogay inay baaba'shay gaaskii. daani marna ma qoysanin natiijadan darteeda oo waxay sii wadatay dagaalkeeda ay kula jirtay aar. Steve ayaa meesha yimid waxayna ku dhahaysaa xilligan aar waan dili lahay adiga ayaa iga celisay. daani waxay u sheegaysaa inay meeshaas aadi doonto gebi ahaanba ay kasoo taqloosi doonto. kadibna Stephen wuxuu tusay qaacidadii. kadibna meesha ayay aaday daani. kadib daani meesha ayay kasoo tagtay ayadoo weerarka ku soo qaaday askarta Jarmalka. kadibna waxay imaaday askarta Jarmalka kadibna mid ayay u laayay gebi ahaan. kadib waxay qolka ugu soo galaysaa sarkaalkii ayadoo rabto in ay disho sarkaalkan. kadib wuxuu ku soo riday xabadda ku soo riday ayay ku celinaysaa bistooladiisa. intaasi kadib daani iyo Jarmalka askariga Jarmalka ahay meesha ayay isku dagaaleen oo waxaa dhexmaraya dagaal culus. kadib daani ayadoo ciil u qabta sarkaalka Jarmalka ayay waxay ula dagaaltamaysaa si aan caadiyin. ugu dambeyntii asiga dhan way soo gabagabaynaysaa oo way dilaysaa. kastaba ha ahaatee dadku weli waxay isku diyaarinayaan dagaal. dhanka kale waxaa imaaday Steve waxayna u sheegtay inay soo afjartay sarkaalkii Jarmalka. Stephen wuxuu leeyahay Ars wax kama aqaano. daani waxay leedahay waxaan arkay carruurta oo dhimanayo oo midkood dalaq uma siinin. daani waxay u sheegaysaa midaas inay dhacdo markii Ars oo keliya oo maamulo maskaxda bini'aadanka. Steve ayaa sheegay oo wuxuu leeyahay dadka waxaa laga yaabaa inay sidan ayna ay rabaan dagaal. daani waxay leedahay hooyaday way saxnayd waayo sababtoo ah aadanaha ma awoodan inay naga caawiyaan Ars. Steve wuxuu leeyahay waxaan u baahanahay caawinaadaada haddii aad nii caawinin dad badan ayaa sidaan u baaba'aya. Steve waa baxay laakiin daani waxay gadaasheeda ka maqashay cod. markay soo jeesatay waxay aragtay sarkaal oo gadaasheeda taagan. sarkaalka ma ahin Jarmal ee wuxuu ahaa UK. wuxuu joogay xerada Jarmalka. intaa kadib wuxuu dhahayaa hooyada run bay kuu sheegtay. wuxuu ku dhahayaa aadanaha ma awoodaan inay aniga na caawiyaan marka ayaga dhan waa inaan soo gabagabaynaa aadanaha. wuxuu leeyahay aadanaha waa dad hunguro weyn. daani waxay fahmaysaa in Ars daani waxay weer ku soo qaadaysaa Ars. kadibna waxay soo qaadanaysaa seefteeda. kadibna gacanta ayay ku baabi'aysaa seefteeda. kadibna way yaabaysaa oo waxay leedahay sida seefteeda uga baabaaday gacantiisa. daani
way naxday markay midda aragtay waayo sababtoo ah seefteeda wuxuu ku baabi'i kartaa aars keliya. aars wuxuu leeyahay aadanuhu wayna baabi'iyeen oo dhulkiina ayay qaateen wayna dulmeen. markuu aabbahay aniga isoo weerarayay waan tabareerahay laakiin waxaan sugayay inaan awood yeeshto muddo 1000 sano ah. aadanka maskaxdooda waxaan geliyay in ay sameeyaan gaaska sunta ah waayo hore ayaan iskugu dayay in aan sameeyo waa ku guuldareystay. hadda inaan bini'aadanka aan lahay cid iga celi karta ma jirto. wuxuu u qaaday Dani riyooyin wuxuuna tusay iyada oo aragto sida dadku u burburinayaan dhulkan. Dani wuxuu u sheegay inay la joogto waayo wuxuu leeyahay waxaan rabaa in aan burburiyo dadka. wuxuu kaloo Dani u sheegayaa inay yeelan doonaan dhulkan. seeftani ma aha seef soo afjari karta aars wuxuu maskaxdeeda ku soo Dani in ay baabi'iso bini'aadamka ay noqoto asiga ee la tartanto. way ka diiday oo waxay tiri aniga ma ka mid noqon karo fikradahaada qaldan. dagaal ayaa ka dhex bilaabanaya aars iyo Dani. Steve iyo asxaabtiis waxay ogaadeen in Jarmalka ay ku rideen gaas sun ah London. magaalada waa la baabi'i doonaa oo waxay ku soo weerareen bambooyinkii gaaska. Steve sidoo kale wuxuu rabay diyaaradda inuu ku burburiyo hawada oo gaaskan sunta ah u soo gaaran dhulka. dhinaca kale waxaa la soo muujinayaa Dani iyo aars oo dagaal culus dhex marayo. kadib dab weyn ayaa meesha ka kacay. Dani dhinac ayaa u dhacday. Steve baa u yimid oo wuxuu dhahay waa inaan baxaa. Dani waxay tiri ha ka walwalin wax walba waa qaban doonaa. Steve wuxuu yidhi aan badbaadiyo dadka waayo aad baan kuu jeclahay. Steve wuxuu fuulayaa diyaaraddii ay ku jiraan gaaskii kadibna diyaaraddii ayuu gubiyaa. aars wuxuu rabay midaan inuu arko. kadib Dani waxay dagaal ku qaadaysaa aars isla marka Dani dhulka ayuu ku riday. Dani markay aragtay inuu Stephen diyaaradda ku geeriyooday aad bay u qaylisay. kadibna waxay yeelatay awood ayadoo dhan waxay noqotay dab waxayna baabi'isay meeshii oo dhan. Dani waxay la wareegtay awooddii aars oo waxay yeelatay awood saa'id ah aan la celin karin. dhanka kale dhakhtarku wuu soo baxay oo wuxuu hor yimid Dani. kadib Dani waxay soo xasuusatay ereygii ahay Steve haddii aad rabto inaad guulaysatay waa inaad jecel muujisaa. kadib Dani way ka tegaysaa dhakhtarkii waxay weeraraysaa aars. kadib aars Dani wuxuu ku weerarayaa koronto. kadibna Dani waxay yeelanaysaa awood oo korontada wax kama qaadayso. Dani waxay soo gabagabaynaysaa gebi ahaan aars oo meesha ayay ku dilaysaa. ugu dambeyn dadkii waxay ku noolaanayaan farxad. qof walba meeshaas joogay wuxuu go'aan ku gaarayaa gebi ahaanba dagaalkan inuu iska dhaafo. kadib ciidamadii waa laabanayaan waxay ku laabanayaan gurigooda ayagoo faraxsan. magaalada waxay noqonaysaa magaalo farxaddeedii hore ku soo noqotay. sheekada waxay u wareeganaysaa waqtigan xaadirka ah. waxay leedahay waxaan mar walba aan jeclay in aan badbaadiyo bini'aadamka. tijaabadan waxaan ku bartay 2 shay oo kala ah mugdi iyo iftiin oo labadoodaba oo ka yahay gudaha aadmiga. waa inaan go'aansanaa inaan u gudubno godcodka ama iftiinka u gudubno. waan ogahay dunidu inay ku badbaadi karto jacayl. kadib waxay warqad u qoraysaa Batman sababtoo ah wuxuu siiyey sawir uu ku qoran yahay xasuusteeda. waxaa lagu muujiyay ugu dambeyn muuqaalka in ay dib ugu soo laabatay lebiskeeda Wonder Woman. filimkan intaas ayuu ku soo dhammaanaya. fadlan haddaa ka hesay videogan fadlan subscribe like share comment intaba noo taawo. waa ku mahadsantahay daawashadaada.